الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وسورة البقرة آيات لبقل أفرتني السقال وقصدي شرح يسيك ورميسي لبقل أفرتني اللحبا لا عفوا لبقل أفرتني اللح قصده وحي شرح يسا reer banu Israa'iil dhacdo waqtigoodii dhacday iyo nin madaxaha loo sameeyay iyo jihaad la faray iyo intoodii badnay sida ugu fashilmeen si kala hadii loo eego waxyaabaha mustafaadaadka waynu ka qaadan doonaa walorta sharaxa qisada aynu qadino qaala Allahu ta'ala ilaahay baa wuxuu yiri alam tara miyaanad arkaynin ama aanad u jeedin ama aanad ogeyn nabi maxamedow ama qofkii lala hadlayo ila almalai jamci faraha badnaa min bani israa'iil reer banu israa'iil kamida min bacdi muusa nabi muusa dabadi intii uu tagay kadib id qaaluu waqtiga ay ku yiraahdeen linabiyin lahum nabi iyagu ay lahaayeen ka tirsanaa ibcath lana malika nin boqoran oo soo saar oo hogaamiye dagaal ah nuqaatil fi sabiilillah jihaadka ayaan ku dagaalami cadawgaan ilaahay daraadii ula dagaalami qaala markaa nabigaasi wuxuu yiri hal casaytum mawdawdihin in kutiba calaykum alqitaal hadii jihaadka la idinku waajibiyo allah tuqaatilu inaydan dagaalaminba ma laga yaabaa qaaluu waxay yiraahdeen wama lana oo maxaa noo sugnaaday allah nuqaatila aanan u dagaalamayn fi sabiilillah jidka xaqa maxaan ugu dagaalamayn dagaalka waa galayna waqad ukhrijna iyadoo laga saaray min diyaarina guryaha yagi wa abnaa'ina iyo wiilashayadii ama caruurtayadii daliya dadba wana laga qabsaday falamma kutiba calayhim alqitaal markii dagaalkii lagu waajibiyay tawallow way jeedsadeen ilaa qaliilan in yar mooyaane intoodii badnay way firdhadeen oo way fakadeen wallahu caliimun bidaalimiin ilaahay baa aad u ogsoon oo ka warhaya kuwa xadgudubka iyo gardarrada sameeya وقال لهم نبيهم نبيgoodi markaa wuxuu ku yiri inna allaha qad ba'atha lakum ilaahay wuxuu idin soo saaray daaluuta ninka la yiraahdo malikan isagoo boqor iyo madaxdiina dagaalka idinku hogaaminaya qaaluu waxay yiraahdeen anna yakunu lahu sideebu ugu sugnaanaya almulk madaxtinima calayna dushayada sidoo madax noogu noqon kara wanahnu ahaqub annagaaba kaga haboon بالملك مدحتنمدا منه إسقى أنك دلد أهين ولم يتل منسين ساعة من المال إن بدنا حوله قال مركا النبي يسوع كل رهر بنو إسرائيل إن الله اصطفاه عليكم إلهي بايدين دورتي ودشين الدورتي إن مدح دين نقضه وزاده إلهي وحانو كردي بسطة بلارنا في العلم والجسم حق علمي يا قونته هي شركية أوده والله يؤتي ملكه إلى هاي مدحتنمدي سوح السياء من يشاء عد دونه كان يسقاسيه راع والله واسع عليم إلهي با واسعها بلارا فضل جيسا بلارا هي علم جيسا عليم وحول بنوغي marka 10 ka intaas wada socota hadaynu dib ugu noqono labada aayadood qaybta hore waxay tilmaamaysaa ama ay ka waramaysaa ama inoo sheegaysaa reer banu Israa'iil qolo kamida ama malo waa dadkii madaxda ahaa iyo ummad weyntii reer banu Israa'iil ayaa waxa laga qabsaday dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankii ay ku noolaayeen marka ama qudus ha ahaato ama wixii ku xeernaay hareeraheeda ha ahaato dadka ka qabsadayna dee ummado shisheeye un baahan ilaa adduunka waa la isriixayaa sidaynu qaybta dambe qisada ku arki doono iyaguna markaa dad islaam bay ahaayeenoo
dee ambiyadii la socda oo nebigani hogaaminayo horkacayo qisooyinka qaar baa waxay idhaahdaan ama ay qabaanba cidda marka halkaa ka haysatay niman camaaliqaa bay ahaayeenoo waaweyn oo qaarkoodna falastiiniintaba ay ku sheegaan inay falastiiniinta ahaayeenoo ay ugu horreeyeen meesha cidday yihiin qur-aanku ma cayimin nimankaa iyaga ahi iyaga ayaa soo jeedinta yeeshayoo nebigii wakhtigaa la joogo qur-aanku aanu magaciisa sheegin laakiin kutubaheennu ay qorayaan ama tafaasiirtu shamwiil in la odhan jiray kuwa reer banu israa'iilna saad bay ka dhigaanoo samwiil bay idhaahdaan ayay la hadleen badheedhahoodii bay dhiibteen way isxariifiyeenoo waxay iska dhigeen niman wax iska dhicin karaa waxay idhaahdeen nebigii iyagoo la hadlaya waxaanu doonaynaa inaanu jihaad gallo dalkiiyo dadka xorayno laakiin waxaan u baahannahay hawshaa nin yaqaana inaad ilaahay inoo weydiiso inuu noo soo diro waxaa la yidhi ninaad la joogto ninaad taqaano waad la joogtaa baa la yidhi ama qofka had iyo jeer aad ku baran weyda saacad sanad kuma baratid marka waa nin ka aragti dheer had iyo jeer ambiyada ilaahay wuxuu ka dhigaa dadka ugu aragti dheer dee waana waaqiciinoo ummaddoodii bay la joogaan nimanka reer banu israa'iil iyo gudhuugadhaadoodii iyo wareegaysigoodana wuu yaqaanay dabeetana wuxuu ihi haddii imika jihaadkaa la idinku waajibiyo ma laga yaabaa inaad ku fashilantaan suurtagal ma tahay inaad ku fashilantaan markaasay soo boodeenoo waxay idhahaan ha ka yaabin meeshu waa jihaad jihaadka sababihii lagu geli jirayna way yaallaan iyo wixii nagu kalifayayoo dee ubadkii iyo ehelkii iyo dalkii iyo duunyadiiba waana laga haystaa marka waxaanu dee uga hakanaiyo meelaanu fadhinaatoona ma jiro wuu ka aqbalay jihaadkii baa lagu waajibiyey sidaa ilaahayba uu sheegay in yarun baa soo hadhay falamaa kutiba calayhim اlqitaalu tawallow ilaa qaliila minhu intii kale way ka yaaceen macnaa way ka sii jeedsadeenoo waxay dha hawshaa diyaarma miyaa la waajibiyey na laguma hadleeyo waa fulaynimadii reer banu israa'iil wuxuu soo faytuun bay laayiina nimanku waa fulayaan mar wala qur-aanku uu ka warramayaba waxyaabo ku dhaliilo waxaa ka mid a bakhaylnimo iyo fulaynimo dulmi buu ilaahay ku caddeeyey waayo qofka ilaahay diidaa waa daalim qofku hadduu amarka ilaahay raaci waayo wixii dantiisaana uu diido daalinka koobaade codsigii sida ahaa iyadoo uu taagan yaho jihaadkiina lagu waajibiyey ayaa waxa uu haddana u cayimay ciddii ay doonayeenoo ninkii qaa'iduljeeshka ahaa ama colka horkacayay nebigoodii baa markaa ayaa codsigii ilaahay xaggiisa uga keenay in laga aqbalayoo wuxuu ihi ilaahay wuxuu idiin magacaabay oo rasuulka lagu yidhi colka ha hogaamiye reer banu israa'iil u sheeg nin madaxa oo la ydhaha daaluut waa magaciisa waa melik meligani imika waxa weeyaan waa qaa'id waa hogaamiye u horkici doona colka xagga dagaalka waxay bilaabeen wixii ummadaha kale caadada u ahaa iyo murankoodii way ka hor yimaadeen sababtay uga hor yimaadeenna waxay dhaha ninkani qoladii dhaladka u ahayd ama dadka soo xukumi jire talin jiray maaha oo dee ninaan talin jirin weeyi talabaadee taallaana waxa weeyaan bay idhaahdeen xoolo lagu xishana ma leh haddii aanu iskaba dhaafi lahayn dee nin wax laga cuncunayo oo adduunyo leh iyana ma aha kol haddii aanu soo talin jirin adduunna lahayn dee arrinna laga qaadan maayo adduunna laga heli maayo naga jooji kamuu yeelina wuu ku adkaystay ila waa wax ilaahay ogolaadee wuxuu idhi ninkaa isaga ah ilaahay wuxuu siiyey wax uu hogaamintan ku fulin karoo ah awood iyo aqoon aqoon wuu leeyahy dagaalka awoodna wuu leeyahy dagaalka labadaasaanu dagaalku u baahan yahi ee anigaa talin jirayoo reer hebelah iyo intanoo lacaga baan xambaarsanoo taajir baan ah dee labaduba fulaynimay u dhowi kanina waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo kursigii aad adigii reerkiinu soo haysan jirteen yaan lagaa dilin ee dib u fadhiiso oo colka uu jabiyo kan xoolaha lina waxaa laga yaabaa inuu is idhaahdo yaad ka calafgo in waxanoo maalehe shooladda ha ugu dhicin dagaalka sidaa daraaddeed ilaahay aqoon iyo awood buu ninkan u siiyey raaca
توانا مدحتني مدنا إلهي بحياها الديدين إلهينا وحلبه وأكسونيه انت سوى مركا كل كانوا ديبوا نقونا قصة مستفادات بين مركا قصة الله ذي وحياب الله قاضنا يو كو وحكا قصة نهرتوا عبرة جهات كشيء الله ينعضه لقوة تبيه ومدين إما كمو بلعبين وقبنا معها لكن واحد وشرينا ومضاها مركا للظلميانة إلهي بفرق ترى إسك عليه ورن ترى الشيء مركا هدي جهات كلا إذن قوة تبيه ومضى إسلامك هدي أتين هلا يا أبينا وضدني وضهر الله مريضا هاي هو أنت تكلينا يرهر بنو إسرائيل با بريجي يجنا للينا إلهي وحول جهاد وقلع مركز جهاد كقصة لرجال ناس تسواتا وحي عطينا يسقف كجهاد ككب قضاء إنه إلهي أكتسي ومد أكتي هذا السنة ظالم كيه قصة وحيابا لقى فايدة السنة يو حكم ذا ضدك إن أنا فوضك وهبورين وغضبك لبعض لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم dadku kuma haboona madaxlaan inay noqdaan iyaga laftigooda waxay dareemeen inaanay cadawna la dagaalami kareynin cidna iska celin kareynin haddii aanay haynin cid ku haboon hawshana horkici karta way fahmeen markii hore taa waliba dagaalka waxa la yiraahdo Soomaalidu waxay oran jireen tala reerna waa la warwareejiyaa tala colaadeedna waa la mideeyaa talada reerka cod baa loo qaadayaa reerka xageebayn u rarnaa halkaasaynu dajinaa halkaas cusub odaybaha hadlo waxa sheego laakiin markay dagaal noqoto laba oday kama talinayaan ninun baa la dhageysanaya si aan loo jabin marka tala reer waa la warwareejiyaa bay oran jireen laakiin talada colaada nin baa loo dhiibaa islaamkeenuna waa sidaas oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wax kala daayo xataa saddex qof haday safar galayaan mid madaxa laga dhigay buu ila way isqabsanayaan qisada waxaynu ka faa'iideysanaynaa mar walba dagaalka diinta dhexdeeda la dagaalamaya sabiilullaahi buu ilaahay ku qaydaya fi sabiilullaahi in rasuulka fasiro wuxuu man qaatala litakuna kalimatullaahi al-ulya wadadka diin sax u dagaalamaya iyo diinta inay kor yeelaan wixii kale la sheegay dagaal noqon maayo qisada waxaynu ka faa'iideysanaynaa dadka in la iska hubsado waxa la yiraahdo bani aadam dees qancintu way ku badantay aniga sidana iyo waanu yeelaynaado aad bay ugu badantahay marka hadaba iska hubsinadu waa muhiim oo de waa kan dib u joojiyay war dagaalka aad doonaysaan hadda waa laga yaabaa inaad ku fashilantaan sidii uu sheegay baanay u dhaca marka waxa la yiraahdo waaqicinimadu ama qofku inuu dadkiisa aqoon u leeyahay waa inuu ku hayaabay ka dhigan tahay kabarad buu ku hayaa sawirkoodu hayaa saaynu ka fahmi karayna qisada waxaynu ka faa'iideysanaynaa martabada diintu inay ka sareyso martabada madaxtinimada wadiyo jeer dadka laba qolaa u madaxo cidii diinta ku hogaaminaysa iyo cidii kale adduunyada arrimaheeda hogaaminaysa marka nabigan isaga laga sugayaa inuu madaxda cayimo adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli al-amri minkum السياسة الشرعية مركز علماء الشرح أيام وحيلين إلهي وحول إلهي أطيع رسولك أطيع أولو الأمر كان أطيع مركز أولو الأمر وضدك مدحنا وحكوك أبيلين علماء ضدك هو قامين تدين تأه استادرات بيجوا تادر ينسوا حيلادين واحد مقع عوضة من مدح يسقي كسوق يا نهرنتن ابعث لنا ملك هذا ماشي وصل ريه هو قانكي دين تأه بالعد دو مقع عو aanu ka dambayno horkaca gaaladuna waxyaabaha dadka muslimiinta ku duleystaan waxa kamid ah dadkii diin iyo dunyaba u hogaamin lahaa laga ilaaliyaayo dhinaca diinta laga la dagaalamaa ila dadku way saxmayaan oo ilaahay bay xaqiisa u kacayaan hadii hogaamintii diin noqoto qisada waxaynu ka faa'iideysanaynaa sababaha loo jihaadayo waxa kamid ah aqliga iyo sharcigu bana sheegayo in dalkaaga iyo dadkaaga laga qabsado oo dalkaagiina laga qaxiyo laga eriyo dadkaagana la adoonsado la dulmiyo waxba ma harin mar haddii halka taagan tahay oo maalka iyo deegaanka iyo maatida laga la wareego dagaal waa waajib dagaalkaas waa waajib oo ka aynu halka qisada ku arkayno
hal marun baan la saamixin oo markaas waxa weeyaan ama saaritaanku markuu sharci yahay nimankii yuhuudda ahaa ee madiina joogay dee nebigu waa kii ka dareeriyey huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli lkitaabi min diyaarihim liawali lxashr inay dagaalamaan xaqumay lahayn oo iyagaa marka hore wax dulmiyey dadkiina iskala joogoo deegaankiina ka mid ahaada baa la yuhuuday madiine markay joogeen dab bay soo alooseenoo gaaladay soo raaceen marka saaritaanka halkaa la saaray garbu ahaa oo dee daalimiin bay ahaayeen laakiin marka iyadoo lagu dulmiyayo dadkaaga iyo dalkaaga lagaa qabsado dagaalku waa waajib jihaadkuna fardulkifaaya weeye laakiin xaaladaha uu waajibo waxaa ka mid ah dalkaaga iyo dadkaaga marka lagu soo duulo sidaa reer banu israa'iilba ay sheegeen tii maalintaa ay ka cabanayeen iyagii baa maanta ku jira oo dadkii muslimiinta falastiiniintu ay kow ka ahaayeen iyagii baa dulmiyaya oo dalkoodii ka qabsaday oo dadkoodii haysta oo habeen walba garaacaya marka siday berigan codsiga u soo jeedinayeen inay lahaayeen dagaalka ha noo ogolaado maantana halkii falastiinta ku jira oo sidaa waxyigu ina barayo waxa ay halkan ka arkaynaa shayga loo yaqaano alxadar min alisticjaali qabla alliqaa cadowga intaan lala kulmin waa inaan waxba la dedejisanin oo dagaalka ilaa la gaadho oo colka la iska hor yimaado ka hor waa inaanu aan dagaalana iyo ina hawlgeliya iyo mee iyo waa soconaynaa iyo arrimaha degdeg waa in laga daayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam asxaabta markuu la hadlaya wuxuu lahaa laa tatamanaw liqaa'a alcadow marka weerarku bilaabmayo waar waxba inagu kiciya ha odhanino ha degdegine salu llaha alcaafiya ilaahay waxaa weydiisataan inuu cudurka fulaynimada iyo idinka caafimaadiyo cudurka weyni waa fulaynimada waidaa laqiitum fasbiruu marka xabaddu bilaabantana xejista oo hayaacina waclamuu ana aljannata taxta dilaali suyuuf waxaa ogaataan jannada ilaahay idin sugaysaana seefta ama hubka harhkiisa ayay ku sugantay markaa kolkaad hubkaa ku dagaalamayso haddii hubkii kale lagu soo ridaya kugu dhaco jannadii waa hoostaaday taallaa waa wacyigelin waxaridu lmu'miniina cala alqitaal sidaa ilaahay uu ku howlgeliyo ku abaabul dadka muslimiinta jihaadka buu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa qisada aynu ka faa'idaysanaynaa ana almulka maghramun laa magnamun waxa madaxtinimada la idhaahdo ma aha qaniimad la helo oo lagu guulaysto oo lagu farfarxo lagu faaro laakiin waa maqrab waa culays waa gashi waa wax lagu daba socdo markaa qofka muslimka ahi aragtidu madaxtinimada ka qabo iyo qofka aan hagaagsanayn ee aragti kala xambaarsan way kala duwan yihiin adiga arkaya ummadaha shisheeye maanta qofka waa la hambalyaynayaa beryahaasoo dhan buu farxayaa casuumadu dhigaya meel kursiya markuu helo leanna waxbuu ku raadinayaa wuxuu doonayaa qaniimadii inay u noqoto laakiin dadka muslimiinta ah waa lagu riixi jiray oo waa lagu muslixi jiray wixii madaxtinimo ila waa ammaane waxaad ka soo qaadaa uun ammaano culus oo lacag oo cidi leedahay haddii imika laguu keeno adoo meheradaada iska jooga oo lagu idhaahdo ammaanada noo hay waxaad leedahay ammaana miyaa haladeer maydiniga dayn way igu lumaysa hadhow baa la yaqaanabayaa mar cid kale u dhiibta mar bal meelaha raadsada muddaad ka warwareegaysa cid kale marka la waayaabaa dirqi ku qabanaysa madaxtinimaduna waa saas oo kale waa ammaana waa kii nebigu abidahar la hadlaya lahaa waa ammaana adduunkana waxay noqon doontaa aakhirana nadaamay noqon doonta khizi iyo dulli iyo murugay noqon doonta marka qofkii haddii aanu ammaanadan u aaminsanayna wuu aaminsan yahay wax lagu dallacayo lagu dirajoobayo oo uu isagu wax ku doonayo dee waa aragti waa maqrab iyo maqnam marka siyaasa sharciya inagu waxaynu arkaynaa inay tahay madaxtinimadii wax maqrab ahoo gashi daba socdo oo ilaahay agtiisiiya ummadda agteedaba eedi daba socoto iska ilaalinba u baahanba cid laga fursan waaye mooyaane waxyaabaha aynu qisada ka faaidaysanayna waxaa ka mida qofka ummadda hogaaminaya labada arrimood ee hogaamintiisa asaasiga ama sifaat lqaa'id الnaajix hogaamiyaha ummaddan horkici kala ee ku guulaysanaya hogaamintooda ee diintuna ay dhiirisay waxa weeye qofka leh aqoon iyo awood waa taa aynu arkayno wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism cilmi waa kullun bixasabi meel waloo la horkacayo la hogaaminayaaba cilmi gaaray u baahantay
kii dhaqaalaha kii dagaalka kii waxbarashada qofba meesha takhasuska uu leeyahay aqoonteeda waa inuu leeyahay awoodeedana waa inuu leeyahay ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin ijcalnii calaa khasaa'ini alardi inii xafiidun caliim marka waa cibaarooyin siyaabo kala duwan baa loo dhigayaa marka imika dagaalkii la marayo aqoon baa la sheegay awoodna waa la sheegay waxa laga yaabaa qofka idaaradda iyo maamulka ku fiican inaanu dagaalka ku fiicnayn qofka dagaalka ku wanaagsan waxa kamid ah inuu aqoon u leeyahay cilmigii dagaalka haybadna leeyahay sidii Umar ibn Khattab Ali ibn Abi Talib ragii mubaarasada u soo bixi jiray tani weyn oo muruqiyo kuusan oo hadee bakuray markuu mubaarasada u soo baxa uu sii gariirayo qofka loo igmadee loo diray waxa weeyaan ku xisaabtankeeda leedahay marka quwad muuqata oo taajirka ah iyo quwad macnawiya oo cilmigii dagaalka labadaba uu leeyahay labadaba waa leeyahay sida daraadeed ba Khalid ibn Walid markuu soo islaamay isagoo diinta aqoon badan ba u lahayn wuxuu yaqaan uu yariyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadii ka dambeeyay waxa lagu hawl galin jiray dagaalka adiga takhasuskaagu wuxuu ahaa qaa'idul jaysh ninka ku guulaysta colkii hor kacaad hayde hawl gal baa la oran jiray waanu ka jibba keeni jirayo guulbu ka keeni jiray ilaahay idamkii marka hawlaheena inta labada arrimood ay ka maqan yihiin ee ay ku jiraan ad-du'afaa al-khawana dadaan amaana lahayn oo khawana oo du'afa oo aan awoodi lahayn intay ku jiraan la guulaysan maayo dadkuna ka midha keeni maayo maamulkooda qisada waxyaabaha iyo wax kale oo ka sii badan ayaa aynu ka faa'iideysanaynaa inaha dambena dariska dambe aynu ku arki insha Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam